marka horta waxay halkaynu maraynaa waa halka shantii hoosood baan kuugu noqonayaa ayad weydiisayna soo imaad weydiin shanta heesood horta dadweynaha bas waxaan hees arkayay heesta ugu waalacas baan kaaga sheekaynaya heesta ugu waalacas cid ma haysano horta niyo de waa waxa la soo yiri youtube-yadani ku jiraan horta waxaan maanta caawa ku wanaagsanay de wax cusub naqdiyaba mayne de wax youtube-yada ku jiray oo dadku yaqaan oo hore loo soo naqdiyo la yaqaanin de u sheegayna waa dhacdooyinkii de ina soo maray sanadkii hore shantii hooseed ugu khibnaayaan arkaan de kuu sheegaya aan waliba mid aan kugu yeeray macaaneey waxa weeye marka laga hadlayo heesta marka laga hadlayo ama de murti kale laga hadlayo fanaan iyo musician toolo ma socono waxa weeye midahaynu ka hadlay midda kale de waxa la yiri wati la yiri hadalku wuxuu amaan yahay intuusan urka ku jiro hadda tiraado uma daale marka de intii umadu lahayd buu hadalku yahayo hadii la falanqeeyo horta nin biciisanti ceelkeen bay noqonaysaa de ninkii wax fiican ku hadlayna waa la sheegaya waa la keenaya ninkii ay ka yiri muhiimahatayna saddex waa la tilmaamay shanta heesood marka ku sheego afar erayo aan nolosha hore u maqal baan kaaga horeysiinaya inaad afarta ugu wanaagsanaan heesahan dambe ku maqlay mataqaana waa eray baynu ka soo qaadaynaa tidciya ninba waxaad maqashay adigu ninkaas waa naafo oo waa jabhadii ninkaas waa naafo waa ciidanka inaad ninba intuu fikri jaylaani la yidhahdo nin yaro jaylaani la yidhahdo abuano dee huriyo tuubaan anigu yidhahda hargeysa jooga ayaa intuu inaad dadkii jacaylka uriri buu naafada caashaqay adduunka adigu ma tahay mid ka mid ah balka waran ninkaasi dhaa يعني dadkii jacaylku naafeeyay buu u sameeyay magac yani waa erayadan ka mafsuudo aad buu eraygaas u macaan nin laab saalax la yiraahdaa eray buu helay raxmad caashiq had may ku rusheyn subhanaka ya cadiim bal erayga qurxiisa eegina eraygaasina aad buu macaan raxmad caashiq had may ku rusheyn de muxuu ku xigsiiyay qalbiga rabarkii had muu radaya laakiin ta inagu imika kuwan kala dooni meynay raxmad caashiq waa erayada ugu khatarsan raxmad caashiq had may ku rusheyn يعني erayada noocaas oo kala ah markaad qaadqaadato waa all right hadda u fiirso laakiin de ragii ka lahaaba haday doonaan de bohod kharaab ay galaya waa iska de marka qalad ku jira saxuna wuu jira inagu waynu falanqeynaa hees kala waxa jirta wuxuu yiri heesti bay iga maqan gal xareeda oo wacan ama guri barwaqa iyo geedo u baxle kaliga ugu gasha naftaydu ku leeyahay gal xareeda oo wacan iyo geedo u baxlay kaliga ugu gasha waa siin yaro aad u qurux badan waliba heesta ay kala maqan siin yaro aad u qurux badan weeyaan waxay dareemaysaa markaad aragto raxmad caashaq had may ku rusheeyay waxyaabaha markaad aragto naafada caashaq sheegay baan anigu aad uga helay waa soo jaylaan yare top class ee jabhad buu sameeyay wuxuuja de bahal koordi baada kamida waa nabadna sooysanay taasaan ku jiraa anigu magabiga aad iyo aad hawladii marka horta waxa la xasuusanaysaa heesii baad xasuusanaysaa igu qubay jacaylka qalacda jalaacada indhaha kuwa qaasid gabigiiba qaadee ama uu lahaa casaan madow iyo takhal ku tiraxan yahay maarin huryo haddaan kuna tabigu jiro isku tubigida quruxda tii loogu deeqay jaatiiladii quruxda ama waxaad arki lahayd oo kale markuu dacar lahaa ransigan jalaacada ilma ragaxa ka siiya cashaqan soo riday erayada noocaas markaad aragto ayaad dareemaysaa raxmad caashaqo hadbay ku rushay waa eray cajaayib marka horta shantii heesood heestii ugu waalid casay sanadkan soo dhaafnay 2014 heeska waa la casmaaray waa hees bareera nin baa gabadh la qabo la hadlaya iyadoo saddex lagu qabo wariyaade gambana lagu saaray baan sinaba kugu deynay buu subhanaka ya cadiimin alayh taasi waa bareere ya iyadoo saddex lagu qabo abwaan baa tahay oo dhaxar hadan qaldanay qabo iyadoo saddex lagu qabo buu yiri gabadh gambana lagu saaray baan sinaba kugu deynay meel wala casay taasi dhaqankana way dhaafsiisan tahay diintay dhaafsiisan tahay meel kasta way dhaafsiisan tahay nin igu inagu la murmi karaan ma jiro gabadh mar haday gabadhu ma garanaysaa hooyato oo de ay nin u dhaxdo waxay mudan tahay sharaf ka gudub waa hooyo nin kale wuxuu yiri heesta labaad heestaas waa heesta ugu khatarsan number 1 ka gashay xaga khatarta boqod kharaabeyga heesta kale ee tuuga gashayna waa ninka yiri qayb hadii aan xubnahaaga qaawiyo gabadhii inta halkaas soo dhigay waa la ka casba jirta taana ma taasi aad bay u castahay waalidii markaad luqunta qaadeed ugu qabato baashada buu yiraahdaa
واسكل هيسته هاي ورما تاسي ما جرت والله وي جرتا iyana waa hees marka luqunta qaadeed igu qabata baashada dadka waxaad moodaa dibnuhu bay la carray jacaylkii dibnuhu kaga dhacay baad moodaa inaad maalin dhaweyd ba waxa iga soo baxay erah lagaa goo horta eragaas wuu iga soo dhacun mooyee oo dhaxdintii baa lagaa gooyay inaad waxaad moodaa dibnaha dub faruuriha ma isha saarnaba iyana ku jirtay warmiyada lidko si kala u saari karay nin jacaylka taasi waa jacayl leela libaas iyo wati habeenkii taa ku taagay ee daahir ya shabista keenin heesta saddexaadna waxay tiri hadii dhaweyd baa sheegay aad ula yaabay walba caynkaasoo jacaylkaagii sidaa umaan guursado weli waan ku sugayay garkiya dhabtayda ku gama sidaa doonto ugu galgalo bal adigu macna u samee taasi iyaduna meesha kuma jirto ma taasi iyadu miyaad sharaxaad kale u haysaa waa jacayl leela libaasan weeyaan taasi hawsha garkiya gumadayda dhabtayda ku gama bay tiri inanti oo marka gabadh baa loo dhibo qaadaysa gabadh baa ka hadaysa subxaanaka ya cadiimina subxaanaka oo sidaa doonto ugu galgala bay tiri ma taasi kuma jirto waa heesaha hadda waa ta saddexaad inay bartidiga galaysa ka yaabisay cabdi iga yaabisay oo walibana heestan imika qayb iyo sida doonto u galgalo number 2 gay wada ciidirsanaya de taani kuna de waxa ka yara daruun taayado saddex lagu qabo uu tilmaamayba de taa hadduu xitaa soo qarin lahaayee saddex iyadoo lagu qabo midhahaas xadkii bay dhaafeen macnihii wax waliba xadkii bay way taraareen may dhaafin way bismillahi raxmaan raxiim xagga anshaxa markaad eegto heesta afraad anshaxa galaysa ee dee anshaxa soo gashay wuxuu yidhi intuu soo tiriyey heesa soo tiriyey buu hadda wuxuu joogaa dabadda waddankii bay joogtaa heblaayo hudhud buu markaa galayr buu dirayaa galayr iyo inta lugahaaga ku qaado warqadda heblaayo u geeyo inay weliba way lagu xidhan tahay heblaayo geey waa la qabaayay haddana fariinta walaa heblaayo geey buu ku leeyahay oo de hay maxaa ku wada de gabadhii hadii la qabad og tahay markaas wuxuu ku leeyahay weliba waan imanayaa jubaynu ku liidaynu ku aqal gali doonaa hadda waa gabadh la qabo adigu waalida caska waran dadku maxay nala yaabaan inaad waxay ba arkeenay maya de dadkii oo dhan baa taa la yaabaya inay lagu xidhan tahay gaarsii marka waa la qabaayo dabadna anaa imaanayo la aqal galaya de bal adigu xad marka de mooyi maanadu weydiinaysaa waxaan kula yaabay anigu suldaano may waa min subxaanallah waa mid subxaanaka ya cadiimin adeer waa mid subxaanallah de gabadha hadii la qabay de inaynu ka tagno ninkeena wuxuu yiri heesta shanaadna waxa weeyaan wuxuu yiri in kastay ayaan ubad dhashay oori walba noqoto ubad yeelatay intaaba anigoo ogsiin bal muxuu afkuna ku amaanaya bal muxuu indhuhuna ka eegaya buu kulay de wad kala maqantay subxaanaka ya cadiim de haynaade waa mi subxaan bal isna wuxuu ku leeyahay inay la qabay oo ay caruur kala dhashaan ogay buu kulay haddana wuxuu ku leeyahay bal muxuu afkuna ka eegaya indhuhuna ka eegayaan bal muxuu afkuna ku amaanaya oo yaa kuuri eego la hadal lagaa jariyay ha ina de miyaan hayno horta